العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وزيرك وزارة عدالة، وزير كحجينك وزارة بترولك، حلبانا دا عقل كسره، حلبانا دا قلها شعبك، وزيرك نهور وزارة هداية تعليم تسره، حلبانا دا هور قرن كميش فدية، أجاسمياشا ودولة فدرالك، iyo haddii jiraan agaasimayaal ka socdo goboleedyada waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ah u salaamo ayagana madaxda ka socota shabeellada hoose sida ay si lamida wafdiga ka socda dawladda walaalaha aan nahay Turkiga sidoo kale dawladda Uganda saaxiibada nahay iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha sharafta leh waxaan rabaa marka u horeysa inaan hortiina ka iraahdo qof walba halkan fadhiya mansabka iyo maamuuska iyo waxa uu ku fadhiyaan ku salaamo. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaan rabaa marka horeysa inaan u hambaliyo jaamacadda Frontier University madaxdeeda uu horeeyay gudoomiyaha ku xigeenka iyo dhammaan macallimiinta jaamacadda. Waxaan rabaa sida ay si lamid ah inaan u hambaliyo ardaydan quruxda badan oo runtii aan arka maanta in mustaqbalkoodii qaybtii ugu muhiimsaneyd maanta ay soo gabagabeeyeen ayna diyaar u yihiin inay bilaabaan qaybtii labaad ee noloshooda oo ah in ay waxbarashadana sii wataan isla markaana ay helaan shaqooyin ama dadka u adeegaan. waxaan rabaa inaan halkan sidoo kale aan ka qirno in waalidiintii waqtiga badan soo galiyay iyo macallimiintii ayadoo ay tahay maalin jimcaha inaan iraahno aad iyo aad u mahadsantihiin jazaakumullahu khayran ilaahay idinka abaalmariyo maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man laa yashkuru nnaasa laa yashkuru allah marka aan u mahad celinno ayagana waalidiintii iyo macallimiintii. intaa kadib mahadnaq kadib waxaan rabaa inaan laba kelimo ka dhaho sidaad la socotaan waxbarashada dalkan meel fog ayay ka timid waxaa maanta sharaf inoo ah inuu nala joogo wasiirkeennii hore wasaaradda hidaayada tacliinta sare oo aan aaminsanahay foundationkii ama yagleelkii tacliinta sare inuu udub dhaxaad u ahaa sidaa ay si lamida waxaa fadhiya Ismaaciil la taliyaha sare ee wasaaradda waxbarashada horan u ahaa agaasimiinta tacliinta sare iyo dhammaan madaxdii wasaaradda hore uga soo shaqaysay. waxaa kaloo halkan fadhiya jaamacadihii mataqaanaa dalka ka jiray oo aad ogtihiin burburkii kadib rag badan oo halkan fadhiyo ay ka mid yihiin jaamacadaha madaxdoodii iyo dhammaan macallimiinta jaamacadaha iyo jaamacadda Frontier waxaa ka muuqata in ay isku dareen waxa loo yaqaano theory and practice ama nadariyaadkii la dhigayay iyo in ardaydii ay bilaabeen laftoodii in ay si عملية متقانا وفليان ومعناها يهي عالم كهذا أن كجرنو حلقة هذا أن جوجنو وحلوق بوحلي يرهدو 2U2I وحي هذا يرهدان أما لبسنو جامعات إلا لبسنو إندستريا أما لبسنو جامعات وقفك وحبرنا أيو إلا لبسنو وصوبرتو وبراكتس كرينا مركا كدبنا اللي يرهدو أرض جواقل انتبه مركو حالات وفرح سنة هاي فرصة النوع عاشو كلا أرضا إني هلا سنة كوكوات وحي كم انتهي ardayga inuu kalsooni suuqa uu ku aado inuu helo taasna waa kaga mahad celinayna ka wasaarad ahaan qorshayaasha waxa noogu jira in jaamacadaha dalka la garab istaago in jaamacadaha dalka laga shaqeeyo in fursadaha ay u baahan yihiin jaamacadaha dalka la garab istaago in cabashada mararka kood soo baxda oo shacabka in ay mararka kood dhaliilaan midna ogaada dhaliisha waa wax ay wax ku dhismaan laakiin waxa loo baahan yahay dhaliisha inay noqoto daliil wax dhisaysa aysan noqon daliil wax burburinaysa waa soo dhaweynaynaa jaamacadahana waxaan kala shaqaynaynaa meelaha ay dhaliilaha ka jiraan inaan isla toosino inaan ka wada shaqayno waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego bilaha soo socda dalka waxa uu yeelan doona haddii Ilaahay yiraahdo Commission for Higher Education ama guddiga tacliinta sare guddiga tacliinta sare waxa uu qayb ka noqon doonaa dib u eegista la shaqaynta jaamacadaha iyo kala horumarinta jaamacadaha maxaa yeelay waxaan ku qasbanahay haddaan xukuumad nahay ummadda Soomaaliyeed inaan u soo bandhigno jaamacadaha tayadooda ay sareyso kuwa ku xiga iyo kuwa ku sii xiga laakiin taa waxay ka imaanaysaa daraasad markii la sameeyo lagana wada shaqeeyo jaamacadahana ay ku qancaan sida ay wasaaradda ula shaqaynayso wasaaraddan ay ku qanacdo tacaawunka ama wada shaqaynta jaamacadda ay kala dhaxayso. mar labaad waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo jaamacadda Frontier waa maalin jimco ah waxaan isleeyahay waxa weeye in aan u baahannahay inaan cibaadaysano isla markaa waxaan hadda ku jirnaa waa cibaado oo maanta in ardada lala farxo
waxaan mar labaad iyo mar saddexaad rabaa inaan u macaliyo madaxda dowladda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo jaamacadda Frontier waana mahadsantihiin guul iyo waxaan idin rajaynayaa horumar. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.